halkuu ku dambeeyay shirkii la filayay in bartamaha bishan December uu ka qabsoomo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaas oo ay ku ballansanaayeen madaxda madasha samata bixinta iyo sidoo kale golaha mustaqbalka Soomaaliya oo Jubbaland, Puntland iyo sidoo kale madaxda madasha samata bixinta ay markaasi ku ballameen Kismaayo uu ka dhaco. haddaba waxaan kula wadaagi doonaa xogta rasmiga ah ee shirkaas Kismaayo ka dhici lahaa, sababta markaasi keentay in gebi ahaanba uu fashilmo isla markaana uu qabsoomi waayo. waxaan kula wadaagi doonaa sidoo kale xogta shirkii Nairobi ee isaguna markaasi la filayay in uu qabsoomo oo gebi ahaanba fashil ku soo dhamaaday. haddaba yaa markaasi diidan labada shirba in ay qabsoomaan? madaxweyne Farmaajo oo dhankiisa qaaday tallaabo culus iyo sidoo kale go'aan markaasi bulshada Soomaaliyeed ay ku tilmaameen mid geesinimo leh, isla markaana sidoo kale lagu tilmaamay inuu yahay mid taariikhi ah oo baalka dahabka loogu qori doono madaxweynihii hore ee markaasi Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba go'aanka geesinimada leh ee Farmaajo uu qaatay ee dadka Soomaaliyeed ay taageereen ayaan kula wadaagi doonaa. soo dhow daawade, hadday tahay booqashadaadii ugu horreysay nagu soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo, muuqaalka like noo saar, aragtidaada qaybta faallada ah nagula wadaag sida aad markaasi u aragto go'aanka madaxweyne Farmaajo. ma ku saxan yahay in go'aankan uu qaato? haddii markaasi lagu dhihi lahaa sidee u aragtaa go'aanka Farmaajo, ma ku saxan yahay mise waxa uu ahaa go'aan qaldan? maxaad markaasi ku jawaabi lahayd? aragtidaada qaybta faallada ku dhiib. Farmaajo ma ku saxnaa go'aankan inuu qaato mise waxa uu ahaa go'aan markaasi in uu qaato ay gebi ahaanba markaa qalad ahay? qaybta commentiga ayaad ku dhiiban kartaa. yaad is leedahay shirkii Kismaayo in uu fashilmana sabab ayuu markaasi u ahaa? sidoo kale kan Nairobina waxaa markaasi uu ku soo idlaaday isagana fashil oo gebi ahaanba ma uusan qabsoomin. sidee u aragtaa isagana inuu fashilmo? hagaag, waxaan ku hormaraynaa shirkii la filayay inuu Kismaayo ka qabsoomo. magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka Jubbaland waxaa lagu ballansanaa inuu ka qabsoomo shir u dhaxeeya golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo sidoo kale madasha samata bixinta. gebi ahaan shirkaasi ma uusan furmin oo weli albaabada ayaa u xiran, waxaana uu muuqdaa in gebi ahaantiisaba uu fashil markaasi ku dhow yahay qabsoomidda shirkaas. dad badan ayaa waxay markaas weydiinayaan maxay tahay sababta ka dambeysa in shirkaasi uu fashilmo. haddaba aan kula wadaago xogtan. shirkii Kismaayo waxaa marka hore qorshihiisu ahaa isla markaana gogosha dhigtay dowlad goboleedka Jubbaland madaxweyne Sheekh Axmed, waxaana la filayay inay isugu yimaadaan madaxda markaasi madasha samata bixinta iyo sidoo kale golaha mustaqbalka. laakiin marka la fiiriyo gebi ahaanba dhammaan dhinacyadan mid kasta ajando gooniya ayuu watay, isla markaana isku qorsho maysan ahayn. iyadoo la filayay shirka Kismaayo inuu qabsoomo, waxaa soo ifbaxday in markaasi Nairobi shir la isugu yeeray madaxda markaasi golaha madasha samata bixinta iyo sidoo kale dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. madaxweyne Sheekh Axmed goor sii horreysay ayuu halkaasi iska xaadiriyay uu tagay magaalada Nairobi. madaxda Puntland ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday oo aan Nairobi tagin. sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah madasha samata bixinta ayaa ka qayb galay shirkii Nairobi oo aan markaasi aadin. taas waxay keentay marka in shirka Nairobi markaasi loo aaday uu baaqdo. kii Kismaayona waxaa markaasi gebi ahaanba fashiliyay shirka Nairobi la isugu yeeray. haddaba dowladda Kenya waxay ka damacsaneed shirka ay Nairobi isugu yeertay xubnahan in ay ku hor istaagto shirkii Kismaayo ka dhici lahaa. shirka Kismaayo ka dhici lahaa waxa uu u muuqday mid bulshada Soomaaliyeed guud ahaan siyaasiyiinteeda ay markaasi ku midoobi lahaayeen marka laga reebo kuwa talada dalka markaasi waqtigan haya ee dowladda federaalka markaasi majaraha u haya. dowladda Kenya oo ka cararaysa go'aankaas iyo sidoo kale qorshahaasi siyaasiyiinta ay ku midoobayaan ayay shir Nairobi isugu yeertay. shirkii Nairobina waxa uu noqday mid isagana markaasi fashilmay. shirka Nairobi cidda fashilisay waan u tagi doonaa. shirkan Kismaayo laakiin dowladda Kenya ayaa sababtiisa iska lahayd in markaasi uu fashilmo oo dib uu u dhaco. haddaba shirka Nairobi waxaa fashilisay oo gebi ahaanba markaasi ka dhigtay mid fashilmay dowlad goboleedka Puntland. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waa uu diiday ka qaybgalka shirkaasi, wuxuuna yiri dhammaan ajandiyaashan wato ma aha kuwa markaasi shirkan qoseeya, mana ka qaybgalaya ayuu yiri. markuu Dani diidayna dhammaan xubno badan oo ka tirsan madasha samata bixinta ayaa iyagana ka gaabsaday oo markiiba Muqdisho ku soo laabtay. waxaana markaasi uu muuqdaa in madaxweyne Dani uu qaatay go'aan geesinimo leh oo uu ku diidayo in markaasi wax loo soo meeriyay ay Kismaayo la tagaan. magaalada Kismaayo ayaa hadda mar kale loo ballansan yahay in la iskugu tago, laakiin sida ay u badan tahay shirka Nairobi ayay qaybo ka mid ah siyaasiyiinta ka qayb gali doonaan. marka kaas uu soo dhamaadana kan Kismaayo ayaa la isugu imaan doonaa. haddaba shirka Nairobi fashilkiisa waxaa sidoo kale markaasi door weyn ku lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ayaa shirkaasi lagu casuumay
waxaana madaxweyne farmaajo uu gebi ahaanba diiday ka qaybgalka shirkaas. dad badan waxay isweydiinayaan muxuu ku diiday. madaxweyne farmaajo sida lagu yaqaano waa nin inta badan waxyaabaha ay shisheeye usoo meeriyaan aanan markaasi qaadanin. maxaa marka farmaajo wuxuu isweydiiyey islamarkaana ila ka agdhow oo aynu xiriiro la sameynay noo xaqiijiyeen maxaa haddii aan shirka Nairobi ka qaybgala ka faa'iidaya Soomaali maxayse tahay danta ugu jirto. haddii shir la isugu imaanayo meel Soomaali ka mid ah waa la isugu tegi karaa iyadoon cid kale markaasi aysan ku dhex jirin. haddaba iyadoo taasi ay jirto madaxweynaha markaasi dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu arkay diidmada markaasi madaxweyne farmaajo shirkaasi uu diiday mid fursad dahabi ah oo isla markaana u horseedaysa in markaasi gabi ahaanba uu shirkaasi fashilmo. waana fashilmay madaxweyne farmaajona waxa uu markaasi muujiyay go'aan geesinimo leh. waxa uu yiri haddii shirkanba uu yahay shir sirdoonka Kenya ay garwadeen ka yihiin ma ahan mid masaalixda iyo danaha Soomaaliya loogu adeegayo waa mid danaha Kenya loogu adeegayo. sababtoo ah mar haddii sirdoon meesha uu yimaado waxa uu ka shaqeynayo waa masaalixda dalkiisa kama shaqeynaya masaalixda dal kale. marka farmaajo sababtaas ayuu u diiday. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa marka soo dhaweeyay go'aanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna ku tilmaameen go'aan geesinimo leh isla markaana waqtigii loo baahnaa ku soo aaday. waxay dadku tilmaameen in farmaajo uu muujiyay geesinimadiisa, kartidiisa iyo sidoo kale wadaniyadiisa. waxaana bulshada Soomaaliyeed qaybo badan oo shaki ka qabay wadaniyada madaxweyne farmaajo ay tilmaameen in uu yahay wadani dhab ah isla markaana wixii maanta ka dambeeya ciddii shaki ay ka gasho wadaniyadiisa ay tahay qof markaasi aan Soomaalinimadaba rabinba. haddaba haddii maanta booska madaxweyne farmaajo uu ku jiri lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma ka qaybgali lahaa shirkaas oo ma tegi lahaa mise wuu diidi lahaa? aragtidaada bal qaybta commentiga ku dhiibo. madaxweyne Xasan haddii maanta booska farmaajo uu ku jiri lahaa oo shirkaas looga wici lahaa oo Nairobi imow la dhihi lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma tagi lahaa? bal adaan su'aashaas ku hor dhignay warbixintan daawanaya qaybta commentiga nagula wadaag. haa wuu tagi lahaa iyo maya ma tagi lahayn sida farmaajo ayuu u diidi lahaa. bal qaybta commentiga nagula wadaag. daawadayaasha aragtidooda ayaan fiirinaynaa iyo sida markaasi ay u arkaan madaxweyne Xasan haddii uu shirkaasi tagi lahaa oo booska farmaajo isaga maanta ku jiri lahaa iyo haddii sida farmaajo uu go'aankan geesinimada qaadan lahaa. haddaba farmaajo mustaqbalkiisa siyaasadeed saameyn noocay ku yeelan kartaa go'aanka geesinimada ee shirka Kenya uu ka qaatay. farmaajo weligiiba waxa uu markaasi ahaa nin go'aamada noocan ah markaasi qaata markasta. waxaa lagu xasuustaa in uu dalka ka ceeriyay shakhsiyaad markaasi ajaanib ah oo qaramada midoobay iyo dalal kale markaasi u shaqeynaya oo wakiilo u ahaa. marka haddii shir Kenya ka dhacayo Nairobi shir ka dhacayo oo dowladda Kenya ee markaasi martigelinaysa sirdoonkeeda uu qaban qaabinayo haddii farmaajo uu diiday mustaqbalkiisa siyaasadeed waxba markaasi kama bedelayso. dowladda Kenyana dowlad maanta madaxweyne farmaajo iyo Soomaaliya siyaasadeeda wax markaasi mustaqbal xumo ah markaas u horseedi karta ma lahan. oo dowladda Kenya de maanta way dhisan tahay laakiin wax yacni Soomaaliya maanta ay kaga fiican tahay oo aan ka ahayn inay dowlad dhammaystiran oo wadankeeda ka wada arriminaysa ay haysato mooyee wax kaloo Soomaali kaga wanaagsan tahay ma jirto. Soomaaliyana inta badan dee dowladnimadeeda way shaqeynaysaa, madaxdeeda way joogaan, madaxdeeda way shaqeynayaan, madax bay leeyihiin, siyaasiyiin bay leeyihiin. siyaasiyiintana kuwa markaasi dee iska tagaya meelaha way jiraan laakiin kuwa sida farmaajo oo kale ah aan markaasi waxyaabaha qaadanaynin ayuu wadanka leeyahay. haddaba sidoo aragtaa fashilka shirkii Kismaayo iyo fashilka shirkii Nairobi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni sababta markaasi u ahaayeen in uu fashilmo shirkii Nairobi. go'aanka farmaajo sida aad u aragtay qaybta faallada nagula wadaag iyo sidoo kale markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu maanta booska farmaajo taagnaan lahaa go'aan nooc u qaadan lahaa ayaad is leedahay? ma wuxuu aadi lahaa shirkaas oo uu ka qayb gali lahaa mise sida farmaajo ayuu diidi lahaa? qaybta faallada nagula wadaag aragtidaada. aad baa u mahadsantahay. haddii aad muuqaalkan dhammaysatay nagu soo biir calaamad subscribe noo taabo.